السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wararka madaxdiisa kusoo dhawaada wararka waxa idin arinaya Cabdulmalik Maxamed Nuur Shaamad Dikole. qodobada wararka ayaa waxa ugu muhiimsan waxbarasho la'aanta ay haysa qaxootiga Soomaaliyeed, caafimaad darrada iyo waliba qodobo kale oo muhiim ah. sanadihii ugu dambeeyay ayaa qaxootiga haysan waxbarasho iyadoo sanadka 2010 la furay iskuulka codka qaxootiga Soomaaliyeed lagu furay magaalada Sanaa ee dalka Yemen. furitaanka iskuulka ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan hay'adaha sida UNHCR, ADRA iyo UNICEF iyo tan dowladda Yemen. furitaanka iskuulka ayaa waxa ka hadlay maamulaha iskuulka Injineer Cabdulqaadir Maxamed Ali, asigoo hadaladiisa ay ka mid ahaayeen sidii wax looga qaban lahaa waxbarasho la'aanta ka taagan qaxootiga dhexdiisa. in ka badan 2,000 oo qaxooti Soomaaliyeed ayaa waxbarasho la'aan ku haysa ama caafimaad darro ku haysa xerada qaxootiga Soomaaliyeed. sida aan wararka ka hadlayno wariye ku nool xerada qaxootiga Soomaaliyeed ee Alqaris ayaa waxa la soo sheegayaa in qaxootiga Soomaaliyeed ay ku hayso xeradaasi waxbarasho la'aan iyo caafimaad darro, iyadoo qaxootigaasi ay isugu jiraan haween iyo caruur. sida aan ku wareysanay wariye ka tirsan wariyaasha ku nool xerada ayaa noo sheegay sidoo kale in xeradaasi ka jirto waxbarasho la'aan iyo caafimaad darro. Cabdulmalik Maxamed Nuur, idaacadda codka qaxootiga ee Yemen.